qalbigaaga waa inuu ahaadaa nadiif muuminka qalbigiisu غل iyo xasad iyo buqdi waa inuu ka ahaadaa saliim waa kii nebigu lahaa xadiis fi sunan nin ahlaljanna inagu soo bixi doona nin saxaabada ka mid ah soo galoo soo weysaystay saxaabadu ninkii bay fiiriyeen haddana maalin labaad buu nebigu yidhi nin ahlaljanna inoo soo geli doona isla ninkii baa soo galay haddana maalin saddexaad buu nebigu yidhi nin ahlaljanna inoo soo geli doona isla ninkii baa soo galay cabdullaahi binu camar binu caas radia allaahu canhuma ayaa intuu socday buu ninkii marti u noqday wuxuu yidhi aabbahay baan isa soo diinee in marti qaad markaasuu marti qaaday aabbihiina ismay soo diideen wuxuu rabay keliya inuu arko bal ninkani acmaasha uu ku mutaystay inuu noqdo ahlaljanna ha soo aragtid buu ku yidhi ha soo aragtid buu islahaa iyaku khayrkay ku kala dayanayeen khayrkay u kala badinayeen khayrkay iskaga dayanayeen innagu laakiin maanta maxaan ku kala dayannaa naga zamankeennan dadkii adduunya u tartamayaan adduunya u kala badinayaan cali ibn abi aalib radia allaahu canhu ayaa lagu yidhi sif lana addunya adduunyada caliyo bal noo sifee markaasuu ku yidhi maa asifuhaa maxaan iigu safeeyaa awaluhaa canaa wa aakhiruhaa fanaa wa xalaaluhaa xisaab wa xaraamuhaa cadaab buu ka yidhi maxaan adduunyada ka sheegaa buu yidhi awalkaygu waa canaa waa tacab waa daal bal dadka maanta adduunyada jooga eega qof walba waa daallan yahay inankii baa daallan oo aabbihii baa daallan oo faqiirkii baa daallan oo maalqabeenkii baa daallan oo madaxdii baa daallan oo shucuubtii baa daallan oo hooyaa daallan oo inantii baa daallan oo jaamicigii baa daallan oo kii maalka haystaa daallan oo kii faqiirka ahaa baa daallan kii miyiga joogaa daallan kii diyaaradaha waday baa daallan awaluhaa canaa buuhi cali bnu abi aalib adduunyada haddaad ii weyddiiseen awalkaygu waa daal waa tacab buuhi waa tacab waa daal maba nasanaysaanba war maa la nastaa ma nasanaysid wa aakhiruhaa fanaa maxaa ka dambeeya dhammaad ama adigaa dhiman ama adduunyadaa kaa hor dhaqaaqay xalaaluhaa xisaab teeda xalaal kugu soo gashayna xisaab baa ka dambaysa wa xaraamuhaa ciqaab teeda xaaraan kugu soo gashay walciyaadu billaahna waa cuquubo adduunyada dusheedii aakhira waa lagugu ciqaabay xaaraanteeda man istuqniya fiiha futin waman iftaqara fiiha xasan buu yidhi adduunka dusheeda ninka ilaahay hanti uu siiyana hantidaa uu ku fidnoobi xisaab iyo daal iyo rafaad iyo cidhiidhi iyo walwal iyo walbahaar iyo estarees iyo walaahow unbuu ku jiri ka adduunyada aanan haysana faqiirka noqdayna murug unbuu ku jiri isaguna murug midna xisaabteedii baa dawakhisay midna walwalkeygii baa hayo halkeen ka helaada unbuu hayaa soo sidaa maaha adduunka iskaga meydaynayn asxaabta nebigu aakhiraday u tartamayeen jannaday u kala badinayeen wa fii daalika falyatanaafasahi almutanaafisuun maadaamuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu 3 maalmoodoo isku xigta uu yidhi nin ahlaljanna inoo soo geli doonaa cabdulaahi binu camar wuxuu raadinayaa ninkani wuxuu ku mutaystay jannada ma sabab 3 habeen markuu martuu ahaa wax acmaal oo ziyaada ah oo inta iyakuba ay qabanayeen dhaafsan markuu ka waayey ayuu yidhi aabbahayna ismaan soo diidine 3 maalmood buu nebigu yidhi ahlaljanna inagu soo bixi doonaa adigaana noo soo galee camalka aad ahlaljannaha ku noqotay ee maqaamka aad ku mutaysatay baan rabay inaan kaa arkee wax acmaaloo dheeraadoo annakaadna dheer tahayna ma arka buu ku yidhi salaadiina waa 5 waqti baad tukataa saacadaha dambena witridaad u kacdaa habeenkiina cibaado badan kaama muuqato salaataliilkaagu ma badno munaajaadkaagu ma badno qur'aan akhriskaagu ma badno markaasuu yidhi huwa maa ra'ayta buu yidhi intaa aad khayrka intaa aad igu aragta unba anigu aan sameeyaa wax kalama sameeye buu ku yidhi markuu ka sii jeestay buu u yeedhay kaalay mid baa jirtay buu yidhi adiga kaa qarsoon oo aanad ogayn waa maxay habeenkii ma seexdo ilaa waxaan seexdaa anoo dadka muslimiinta iska cafiyaan seexday buuhi qofna caloolxumo calooshaan ugu hayn salaamatu sadri saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin cibaadadoodu ma badnayn salaadooda soonkoogu ma badnayn laakiin qalbigoogaa fiicnaa iyaka salafku waxay odhan jireen abibakr sidiiq radia allaahu canhu
saxaabada rasuulka iyo ummadda nebi maxamed soon iyo salaad maaha wuxuu ku dhaafee bishayin waqara fii qalbihi nuur qalbigiisa ku dhibcay ayuu abubakar ummadda ku dhaafay qulubtooda ahayd qulub nadiifa marka dhibaatada dadku ay kugu sameeyaan ha xasuusan iska saamax iska cafi qazawaadkii nabigeena sallallahu alayhi wasallam qaswad kamida ayaa markuu nabigu qanaa'imtii u qaybiyay saxaabada nin ayaa yidhi markaa qismadan la qaybiyey lagumana cadaalad falin ilaahay dartiina loogama jeeda buu yidhi hadalka ayaa lagu leeyahay nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ulu fiirsada nebiga sicatu sadrihi qalbigiisa balladhkiisa eeg iyo baaciisa cabdillaahi bnu mascuud radia allahu canhu ayaa hadalkaa maqlay war maxaa tidhi qismadan la qaybiyey xoolaha sidan loo qaybiyey lagumana cadaalad falin oo cadaalad laguma qaybin ilaahay wejigiisana loogama jeeda buu yidhi hadalkaa ka warrama intuu leegyahay dembi ibnu mascuud radia allaahu canhu wallaahi in ma qarinaya nebigaan u sheegi buu yidhi markaa buu nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam nebiga wejigiisii baa bedilmay markaa buu nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi in lam yacdil illaahu warasuuluhu faman yacdilu buu nebigu yidhi ilaahayo rasuulku hadday cadaalad iyaku samayni waayaan oo cadaaladdu xaggooga ka imani weydo ayaa kaloo cadaalad samayn buu rasuulku yidhi ereygaa markuu nebigu yidhi ayuu yidhi walaalkay muuseba calayhi salaam intaa in ka badan baa la dhibay oo uu sabray buu rasuulku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaaladiina aadaw muusa fabara'ahu allaahu mima qaaluu wa kaana cinda allaahi wajiiha walaalkay muuse calayhi salaam intaa in ka badan bay qoomkiisu ay dhibeen u sabray aniguna waa sabrayaa buu rasuulku yidhi markaas salaamatu sadri labadaa weligaa wuxuu ku yidhi ha xasuusan labana ha iloobin ilaahay ha iloobin daarta aakhirana ha iloobin buu ka yidhi allah wadaar alaakhira allah waa kii ku abuuray ku jirsiiyey daarta aakhirana waa daarta kulligan u wada noqon doona xaggeeda weeyaan allah waa kii ku abuuray muxuu ku abuuray macrifadiisu ilaahay ku abuurtay cibaadadiisa ilaahay ku abuurtay aakhiraduna waa daartee waa daarta addoommaha ilaahay uu ku sugayo ee addoommaha lagu xisaabi doono weeyaan inna yowma alfasli kaana miiqaata yowma yunfaqu fi الsuuri fata'tuuna afwaaja وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا إلهي قرآنك كغورما يا أوليحي إن يوم الفصل كان ميقاتا ما لنت بنا آذن كالله كل السين دونو الرب قود إلا كل مدونان وما لنت ويوم الفصل وما لنت لك لصاري دونو ويان كيف عنائي كيف حمابا لك لصاري مؤمنك يا منافق لك لصاري أهل الجنة أهل النار كان لك لصاري كي وناك سنايا كي حمابا لك لصاري يوم المصي يوم القيامة لبدا ولقا هاي اللوبين بوكوري لبدا ولقا هاي اللوبين الله كو أبوري هاي اللوبين مر والبحصوصنو وقلبك إلهي كو هاي هداد مهرد هذا جوكت إلهي حصوصنو هداد أقل جوكت إلهي حصوصنو haddaad maskiidka joogto ilaahay xasuusnow haddaad cirka joogto ilaahay xasuusnow haddaad dhulka joogto ilaahay xasuusnow weligaa ilaahay ha iloobin